Ururka hablaha aragga naafada ka ah ee magaciisa loo soo gaabiyo TPG ayaa gobolka Maroodijeex waxa uu ku soo gabagabeeyay ciisiinta carruurta iyo haweenka aragga naafada ka ah ee ku kala nool afarta gobol ee Somaliland ee kala ah Togdheer, Saaxil, Maroodijeex iyo Gabiley, taas oo mu'aasasada Al-Noor Charity ee fadhigeedu yahay dalka Qatar kana hawlgasha magaalada Hargeysa u soo wakiilatay ururka hablaha aragga naafada ka ah ee TPG ciisiinta carruurta iyo haweenka aragga naafada ka ah oo tiradoodu ay dhammayd 50 qof uguna tala gashay ruuxiiba $50. sidoo kalena waxa ay ururka hablaha aragga naafada ka ahi halkaasi ay ku daahfureen oo kuna dhawaaqeen sanduuqa maalgelinta haweenka aragga naafada ka ah ee Somaliland iyadoo ay ku maalgelinayaan lacag uga timiday Al-Noor Charity oo qadarkeeduna dhan yahay $3,300 oo wajiga koowaada ay ku maalgelin doonaan 11 haweena qofkiina lagu maalgelin doono $300. waxaad celinayaa mu'aasasada khayriga ee Al-Noor Charity oo noo soo wakiilatay 50 qof aanu ciidsiinay Ciid al-Adha noona soo dhiibtay lacag qadarkeedu yahay $2,500 oo ay noogu soo wakiilatay inaanu ku ciidsiino 50 qof ee aragga naafada ka ah ee ku kala sugan caasimad 50 qof ee aragga naafada ka ah ee ku kala sugan gobolada Somaliland gaar ahaan afarta gobol ee soo magacaabay. sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa walaalahayaga reer Sweden ee tan iyo markii ururka la bilaaway ilaa hadda hiil iyo hooba nala barbar taagan. sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa afayeenka ururka Tafbalan Geralis Hooda Maxamed Iidaan oo loo garan og yahay hooda lamaanaha indhaha oo runtii ah qofka dal iyo dibadba isku xidha inta badanna soo ururisa dhaqaalaha intiisa ugu faraha badan. ugu dambeyntii waxaan halkan uga mahadnaqayaa walaalahayaga indhaqabayaasha ah ee mar walba na barbar taagan hiil iyo hooba gaar ahaan walaalkay Cabdifataax Maxamed Axmed Cabdi oo ah iftiinka kaliya amba laambada kaliya ururku ku socdo. waxaa ka mid ah qorshayaasheeda aadka u badan 11 hablood oo aragga naafada ah oo ku sugan gobolada Somaliland kuwaasanu maalgelin doono haddii Rabbi raali ka noqdo kuna maalgelin doono lacag si ay ugu furtaan ganacsi amba ugu abuuraan ganacsi. waxaan u taaganahay aniga iyo tiimkayguba mar kasta aan u heelanahay taakuleynta garab istaaga carruurta iyo haweenka aragga naafada ka ah. aad baan ugu faraxsanahay waana u mahad celinayaa horta magacaygu waxa weeyaan Caasho Ismaan Ibrahim ahna gudoomiyaha ururka naafada World Disability Organization ee gobolka Saaxil. maanta sharaf weyn bay tahay in la igu marti qaado maxay ahayd xafladan sida quruxda badan leh loo soo agaasimay hablahan aragga naafada ka ah ee Tafbalan Geralis aad baan ugu faraxsanahay siday walaalahooda maxay aragga naafada ka ah baahiyaha gaarka ah qaba siday u garab taagan yihiin gobol kasta ay maxay u og yihiin aad baan taageersanahay. maaha markii ugu horeysay oo anagu kulanno dhowr jeer baan kulannay laakiin waxa wax laga xumaada ah inaan aad moodo inaanay dadka naafada ah sidoodaba qarankan ka mid ahayn waayo hadaynu ognahay aynu islaanahay qarankan ay ka mid yihiin maanta waxaynu arki lahayn de marka kaleba waa tan la soo buuxiyay de ummadii dalkan mas'uulka ka ahayd maaha dawladdo kaliya waa muxaafid iyo mucaarid iyo baayac mushtari iyo musheekh iyo dhalinyaro cid waliba inay ka soo qayb gasho ogaato in hablaha aan waxba arkayna aragga naafada ka ah qalbiga naafada ma aha waa aragga bay naafada ka yihiin maanta waxay sameynayaan ama ay horeba u soo sameeyeen inay maanta in la arko oo la isgarab taago oo la yiraahdo tana sameeyeen annaguna tanaanu idinku daraynaa maxay hayday waxa laga yaabaa inay tahay malaa in aanay ogeyn laakiin waxaan ka sii afeef dhiganayaa haddaanay maanta ogeyn waxa looga baahan yahay marka dambe hablahaasi meel isugu yimaadaan aragga naafada ka ah in aanay ka maqnaanin idin dhiiri gelinayna waa idin garab taaganahay waxaan
mid leeyahay carruurta waalidiintaas dhashay ubadkaas in ay idinku xidhan tahay in aan damiirkooda la damqin bini aadamku way hadal badan yihiin aniga nin baa intuu saa ii eegay markuu wax iga sheegi garan waayay buu yidhi cira weyne marka bini aadamku wax walba way yidhaahdaan laakiin idinku xidhan tahay inaad qalbigiina xoog u yeeshaan waa markii labaad ee mu'aasasada Al-Nur Charity ay deeq lacaga ay soo gaarsiiso ururka TBG ee hablaha aragga naafada ka ah. Cabdiqaadir Maxamed Xasan, Ariel TV, Hargeysa. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. Payc